muuqaal ka yaabiyo qof walba oo daawaday. Noloshu waa wax qariib ah, waxaana maalin walba la kulannaa waxyaabo nagu dhaco aan darsi iyo cashir ka baranno. Na soo raac sida wax badan uga ogaatid muuqaalka ka yaabiyo qof walba oo daawaday. Laakiin intaana bilaabin subscribe garee kanaalka si aad ula socotid muuqaalada xiga. Calaaqada ama xiriirka ka dhexeeya dadka iyo xayawaanada waaweyn waa wax caadi ah, laakiin xiriirka ka dhexeeya dadka iyo shimbiraha inay saaxiib la noqoto qofta iyadoo jirin cid xabsi ku hayso waa wax la yaab leh. Waxaana wiilkan yar ee Thailand ka soo jeeda oo fadhiistay maalin wadada, waxaana samada ka soo degtay shimbir, waxayna istaagtay dhinaciisa sida inay harsan hooskiisa ayadoo wax cabsi ah muujinayn. Dadka kale markay soo aadaan ayay ka carareen, waxayna aadi wiilka yar sida inay saaxiibo yihiin. Saaxiibka eegan waxaa kala dhexeeya macaamil fiican iyo naxariis fara badan, asigoo u goglay firaash aad u qurux badan. Eegan ayaa wuxuu rabaa inuu saaxiibkiis ka wareejiyo wadada si ay gawaaridu u dardarin, asigoo u diidayo inuu nolosha ka faaruqo. Sidoo kale, eegan ayaa wuxuu wadada ka kicinayaa saaxiibkiis, laakiin waa goor uu geeriyooday. Waxaan naqaanaa in dadka oo kaliya ay wax badbaadiyaan, laakiin dubkan ayaa wuxuu badbaadinayaa cunugiisa kadib markuu biyaha ku dhacay. Naxariista waa mid laga helo xayawaanada oo idil. Dubkan ayaa arkay shimbir biyo ku dhacay, kadibna wuxuu ka soo badbaadiyay biyihii. Deeradan ayaa waxay ku dhex socotay biyaha, waxaana si gaadma ah u qabtay xaaska, waxaana ka soo badbaadiyay xayawaankan lagu magacaabo hippo oo ah xayawaan awood badan kuna soo xiga maroodiga. Ridan ayaa iyadana ka soo bixi weyday biyaha, waxaana ka soo badbaadiyay doofaarka. Eegan ayaa biyaha wuxuu ku celcelinayaa malaayada, waxaana ka garan karnaa in eeygu og yahay in malaayadu biyaha ku nool yihiin. Markii aad u fiirsatid xayawaanada ayaa waxaa ku arkaysaa waxyaabo fara badan oo cajiib ah. Intaas ayaan ku soo koobayaa muuqaaladii aan soo arooriyay. Subscribe kanaalka inta barnaamijka xiga ku kulmayno. Wassalaamu calaykum.